Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waadii salaamay meel kasta aad joogtaan. Waxaanu qaadanaa casharkeenii shanaad hadduu Rabbi ogolaado maanta. Hore waxaynu ugu soo jirnay drug administration ama root drug administration qaybihii laga qaadanayay iyo dhammaan aan 30 second isku soo xidhno gebigiisiiba intii aynu soo qaadanay ilaa hadda isaga oo kooban. Root drug administration wax weeyaan waa marka ama goobta laga siiyo qofka dawada kolka waxa ka bilaabaysa body action-ka ama barta kaliya laga siinayo si ay ugu bilaawdo body action oo meel goobta laga siinayo qofka si uu circulation u gaaro. Marka root drug administration waxa qaybsanaysa labadaba qaybsanaysa systemic iyo local. Systemic wuxuu qaybsanayaa enteral iyo peripheral. Marka enteral wuxuu isagu ka sii qaybsamayaa oral, sublingual iyo rectal. Peripheral subcutaneous, intermuscular, intravenous iyo interarterial iyo intradermal. Local isagu wuxuu qaybsanayaa skin topical, ocular drops iyo intranasal. Waxaan jecelahay inaad fahanteen oo aad ka dhawada dheregteen qaybihii oo dhan ee drug administration ama root drug administration. Marka waxaan bilaabaynaa intii noo horsanayd oo si faahfaahsan ugu sii geli doono. Intermuscular drugsku waxa weeyaan waa kuwa muruqa laga qaato ama dawooyinka muruqa laga qaato. Marka waa muscle-ka laga qaadanaya. Marka saddex meelood baa ugu muhiimsan inta laga qaato. Gillet maximus-ka kuwa la yiraahdo oo botox-ka laga helo ama barida. Viscerals lateralis kuwa la yiraahdo ee laga helo lateralis-ka muruqyada lateralis-ka. Deltoid kuwa upper arm-ka laga helo ama muruqyada awalka. Intaas ma laga qaataa. Muruqaas ugu muhiimsan inta badan iyo gillet maximus-ka inta ugu muhiimsan waa labada muruq oo waxa la yiraahdaa waa labada muruq inta badan la isticmaalo. Laakiin waxa la yiraahdaa reward absorption bay leeyihiin markiiba waa absorption-kooda la sameeyaa iyo onset action inay markiiba jawaabaan ama action-kooda bilaabaan dawooyinka halka laga qaato. Lower rate in elder adaba elder-ka wuxuu ku yahay low marka absorption-ka iyo onset-kaasi waayo muruqoogu aging baa ku dhacaya teenager baa ku dhacaya marka mar kasta qofku si weynaadana muruqu si weynaanaya marka saameyn buu ku yeelanaysaa in dawooyinkan ay muruqa laga qaataa oo dadka waaweyn laga fujignaado. Uptake drug really marka dawada meeshii laga qaadayo way degdeg badan tahay laakiin waxa lagu leeyahay drug-ga solubility-ga ama solution-ka drug-gaas ay ka samaysan tahay ayay ku xiran tahay. Marka waxa la yiraahdaa solubility-gu marka la qeexayo waxa weeyaan quantity particle substance that is dissolved in particular solvent. Marka waxa weeyaan waa quantity-ga yani solubility-gu waa solution ka samaysan waa solution-ka ay ka samaysan tahay ama walax lagu meeli karo. Haddii aynu sii socono oo aynu sii galno isla iyadii waxa la yiraahdaa haddii good blood flowing meeshaas blood flowing socdo ama dhiig fiican socdo muscle site-kaas wuxuu kor u qaadaa in drug meesha lagu muday ay kor u qaado. Marka haddii dhiig wanaagsan socdo meesha ama dhiig ku filan socdo meesha enhance drug uptake inay waxa dhacaysa in kor loo qaado in dawadii meesha laga qaado ama dawadii loogu talagalay ama circulation-kii la geeyo. Waxa lagu leeyahay drug-ga ama dawadu uptake-keegu muruqyada dhammaan ragga oo dhan waa isku mid oo meel kasta waa laga qaadan yani inta muruqan soo sheegnay si fiican bay uga qaadan kartaa laakiin womenska ama dumarku way ka duwan yihiin oo waayo waxay leeyihiin wax la yiraahdo slow uptake inay qunyar slow uptake u sameeyaan waliba marka laga mudo gillet maximus-ka barida. Marka waxa jira lipid fats badan bay ay dumarku inta badan leeyihiin sida caadada aynu naqaano marka sababtaas saameyn ku keenaysa. Waxa la leeyahay waa pain way xanuun badan disadvantage-ka inta badan la sheego waa pain way xanuun badan waxa la yiraahdaa folium khaas baa lagu mudi karaa. Folium khaaskaas ee lagu mudi karaa waxa weeyaan waa 4 ilaa 5 ml oo kaliya. Disadvantage-ka leeyihiin waa intaas waa pain waxaan lagu mudi karaa intaas in lagama badin karo. Subcutaneous drug administration ama
kuwa laga qaato baruurta ama dawooyinka baruurta laga qaato. Subcutaneous man labada xanuun under skinka hoostiisa. Subcutaneous drug administration-ku iyadu wax weeyaan waa subcutaneous under skin baa laga qaataa. Uptaking similarly intermuscular-kii isku mid weeyaan, laakiin rate-ka lagu qaadanayo uptaking-ka ayaa isaga yar. Advantage-ka uu leeyahay waa absorption slow and constant. Inta badanna waxaa laga qaataa dawooyinka la doonaya inay slowga yacni waxay jirka in badan in yar u qaato oo sida kuwa insuliniska ay ka mid yihiin. Absorption-koogu waa slow, absorption-ka lagu nuugayo waa low, waa constant oo la garanayo. Disadvantage-ka waxaa ka mid ah in pain leeyahay, xanuun kulul leeyihiin oo qaar xanuun kulul. Tissue damage waa dhici kara. Absorption is limit blood flow. Absorption-ka absorption-ku waa xadidan yahay blood flow-ga marka la sheegayo. Marka waa constant soo reeranay. Marka absorption-kuna waa low. Marka inta disadvantage uu leeyahay waa labada. Intra-arterial ama intra-arterial blood waxa weeyaan waa kuwa artery-ga laga qaato. Waa difficult technique iyo xirfadda iyo ugu yani techniques-ka ugu adag weeyaan marka la sheegayo. Marka qof professional ah ka bixi kara marka la sheegayo dawooyinka dadka la siinayo ama dawooyinka dadkan ka qaadanaya. Inta badan waxa loo isticmaalaa local tissue effective ama meel sida yani marka ay anti-canceriska la siinayo qofka ama antineoplasm-ka. Marka kuwaas inta badan loo isticmaalaa. Advantage-ka waa bioavailability-googu aad buu fiican yahay, waa 100% weeyaan. Disadvantage-ka waxa weeyaan pain aad buu xanuun kulul yahay. Was safe maaha kuwani, waa laga baqaa. It's expensive, aad bay u qaali yihiin. Marka haddii antineoplasm-ka tusaalahan soo qaadano aad bay u qaali yihiin. waa kuwa kansarka loo isticmaalo ah. Intrathecal-ku waxa weeyaan waa interspinal column-ka in lagu mudo oo spinal kana techniques u baahan tahay. Waa difficult technique oo qof professional u baahan tahay. Waa difficult, aad bay u adagtay, and dangerous technique weeyaan. waxa dhici kara marka qaarkood haddii spinal cord-ka laga soo qaaday spinal cord-ku inuu injury ku dhaco ama xanguluhu inuu khatar galo oo dhaawacmo qof dhan noloshiisa inaad galaafato. marka technique-gaas aad buu ayuu adag yahay. qofka dee professional-ka bartaana wuu fudud yahay. waxaa loo isticmaalaa inta badan sinus infections-ka ku dhacaya central nervous system iyo spinal block in yani la sameeyo. tusaale ahaan haddii ilma dhalanayo kala childbirth imika hooyadoo kale in spinal block lagu sameeyo qaarkayga dambe. marka anesthesia-da inta badan loo isticmaalaa ama dawooyinka suuxiya deedna ilmihi haddii la qalayo marka waa in spinal block la sameeyo. Intradermal ridges-ka waa kuwa laga qaadanayo dermalka ama skin-ku waa kii ahaa 3 qaybood. qaybta ugu sareysa epidermis oo iniga oran jiray, qaybta ku xigta dermal iniga oran jiray, dermis oo ku ugu hoosan jiray. marka saddexda qaybood ayuu qaybna marka qaybta dhexe ayaynu ku mudaynaa kuwan. inta badan tuberculosis-ka iyo waxaas loo isticmaalaa iyo allergic test iyo waxaas loo isticmaalaa. Topical baa inoo haray isagan waa kuwa skin-ka la mariyo. marka waa kuwa dermalka ka gudba ama treatment dermal patch-ka. Absorption-koogu waxa laga yaabaa inuu increase yahay dadka waaweyn iyagoo ay ka mas'uul tahay thinning of dermal layer inuu khafiif ama uu khafifo dermal layer-koogu. Intranasal drug administration ama kuwa nasal-ka laga qaato, nasal cavity-ga laga qaato. kuwan waxa la yiraahdaa waa drip uptaking. waxa la yiraahdo decongestants inuu dhaco. Hormones-ka yani waxyaabaha hormones-ka la qaato. Cocaine-iska waxyaabaha reuptaking-googu aad buu ayuu ugu fiican yahay marka nasal-ka cavity-ga laga qaadanayo. Pulmonary drug administration-ku iyo laftirkoogu waxa inta badan la yiraahdaa kuwa dadka lagu suuxiyo kalaya high voltage weeyaan vibration yani high voltage gases-ka laga qaadanayo aad bay ugu fiican yihiin si general anesthesia. Fluid and evasive absorption-koogu uu degdeg badan yahay aad baan u fiican yahay mana dagaagis. dawooyinka inta badan laga qaato nasalka
Bass diffusion across alveoli marka passive diffusion buu ku dhaafaa marka alveoli membrane marka qofku ka qaato marka dhiigu toos u gelaya marka waxa la large surface area and good blood flowing in high stage uptake when no faa'iideynaysa meesha hadii large surface area noqoto oo good blood flowing maro meesha waxaynu maxay enhancing waxa kor loo qaaday drug uptake marka inta hadii isla fahanay waxaan isu gudbaynaa insha Allah taala cashirkeena xiga lagu xidhnaado halkan inaad subscribe garayso si aad la socoto casharo kasta oo halkan soo gelinayo waa mahadsantihiin